iyadoo lagu guda jiro meertadii afraad ee ololaha dhoolatuska doorashooyinka golayaasha deegaanka dalka ayaa maanta waxaa kaltanka ololaha kambeynka u lahaa xisbiga talada ee kulmiye waxaana saaka subaxnimadii horeba isugu soo baxay fagaaraha beerta xurriyada nuurawan ee magaalada Cerigabo kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaana taageerayaasha xisbiga kulmiye isu soo baxoodan ay ku khatimayaan maalmihii ololahooda doorashooyinka golayaasha deegaanka kala qayb galay gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye madaxda iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag murashaxiinta xisbiga kulmiye uga loolamaya degmada Cerigabo salaadiin cuqaal iyo waayeelaad u tiro badan waxaana ugu horeynba taageerayaasha fagaarahaasi kala hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Maxamed Cawad Faarax oo faahfaahin ka bixiyay baaxadda taageerada xisbiga kulmiye ku leeyahay guud ahaanba gobolka Sanaag waxaanu aad iyo aad u rabnaa inaanu helo ashqaas ka tirsan dowladda hoose oo noqota kuwa qabaa'ilka u dhaxaya kuwa aan cidda koorin kuwa aan cidda carqaladayn noqda ummadadkooda u heegana saacad walbana ku soo horjeeda waxaa isaguna fagaarahaasi taageerayaasha kala hadlay gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye xildhibaan Cabdiraxmaan Talyalle كامبينكي ديرا بيشا يوسو جيرنay maanta gabagabadiisii weyn joognaa waxaan rajaynayaa degmada Cerigabana maanta inaad ku aamini doontaan taladeeda ugu ducayn doontaan 12 murashax ee maanta aad soo cugteen idin hor jooga iyagana ilaahay xilkaa u dooran doontaan ha u fududeeyo qaar ka mid ah murashaxiinta xisbiga talada ee kulmiye uga loolamaya golaha deegaanka degmada Cerigabo ayaa iyaguna halkaasi ka soo jeediyay khudbado soo jiitay dareenka qulubta dadkii fagaarahaasi ka soo xaadiray kuwaas oo ay leeshaanka ku saarayeen wax u qabashada bulshada degmada si kastaba xisbiga talada ee kulmiye ayaa wareegoodii afraad ku soo gabagabeeyay jawi nabadgelyo oo deganaan iyo xasilooni ku dheehan tahay Maxamed Yuusuf